magaalo madaxda Talyaaniga ee Roma ayaa xaafadeeda waxaa ka mid ah mid loo yaqaano Quartiere Africano ama xaafada Afrikaanka. Sababta magacaas loo siiyey waxay tahay iyadoo wadooyinkaas xaafadaasi ay leeyihiin magacyada wadamada Talyaaniga soo gumaysan jiray. Waxaa ka mid ah Via Mogadiscio, Via la Somalia, Ethiopia, Libya, Asmara, Tripoli iyo kuwa la mid ah. Wadooyinkaas aan soo sheegnay ayaa waxaa ku jira wado loogu magac daray askari halgami Soomaaliyeed guulna gaarsiiyey ciidamada Talyaaniga sanadkii 1935. Wadadaas waxaa la yiraahdaa Via Shire. Haddaba waxaan wax ka weydiiyey Dr. Cabdiraxmaan Cumar Moxamed Dr. Cunaaye oo ahaan jiray agaasimaha caafimaadka guud iyo ka hortagida cudurka faafa ee hadda degan magaalada London. Aadan Shire Jaamac wuxuu dhashay 1918 magaalada Dhuusamareeb. Kadib wuxuu ku barbaaray carrada loogu magac daro Wardheer iyo Walwaal iyo Galaadi. Yaraantiisii Qur'aanka wuxuu ku bartay Wardheer iyo Walwaal. Faamilka uu ka soo jeeda ama qoyska wuxuu ahaa miyi iyo magaalo, mar walbana wuxuu ku xirnaa waalidkii dhalay. Gacan buu ka siin jiray markaas dukaan yar oo ay lahaayeen, laakiin waagii Talyaaniga uu wadanka qabsaday oo uu damcay inuu ciidan ka qorto kadib markii dagaalkii Adwa uu Talyaaniga u suuragali weysay inuu Itoobiya jabiyo. Gadaal buu u fiiriyey, wuxuu ogaaday in markaan ay habboon tahay in Soomaaliya ciidan ahaan loo isticmaalo. Ciidamadaasoo loogu magac daray Duub Cas waqtigaas. Dr. Cabdiraxmaan marka hore Aadan Shire Jaamac sidii ugu suurgashay inuu ku biiro ciidamada Talyaaniga. Wuxuu ahaa dhalinyaradii markaas Soomaalida ahaa oo la qaatay isagoo 16 jir ah. Askartii ay Duub Casta qorteen si uu Talyaaniga mar labaad u tijaabiyo dagaalkii hore ugu jabay inuu guul ka gaaro oo qabto. Ciidamo badan oo Soomaali ah la qortay oo markaas aagaas ku sugnaa isagoo isleh Itoobiya Soomaaliya xuduudna waa ka dhaxaysaa. Dad cadow isku ahna waa ahaayeen, waayo Soomaalida sideedaba reer miyi bay u badnaayeen, dad xoolo dhaqato ah. Waxay ahaayeen mar walba niman ceelasha inay yimaadaan ku dhibaateeyo, niman xoolahooda dhaco. Marka taasuu Talyaaniga hoos u fiiriyey iyo dadka Soomaalida oo lagu tilmaamo dad dagaalyahan inay yihiin. Waxaa u suura gashay marka dagaalkaas isagaa markuu qaaday in Talyaanigii uu gacanta ku dhigo Itoobiya. Laakiin ka hor dagaalkii waxaa sabab u noqday habeenada ka mid ah Aadan Shire Jaamac Aadan Low oo bodyguard oo saaran ilaalada ciidamada la ilaaliyo. Waagaas geed baa lagu istaagi jiray, hataa meel ay ku istaagaan lama dhisnayn. Baa ninkii kale oo ka soo horjeedo dhanka Itoobiya baa inuu hilib laf cunay ku soo tuuray. Soomaalida waa iska dhiig kula shahaye, wuxuu ugu jawaabay xabad. Dagaalkii meeshaasuu ka bilowday. Markii arrintaas ay dhacday, Aadan Low waa la soo xiray, waxaana lagu eedeeyey in uu isagoo amar aana qabin uu dagaalkaas isaga bilaabay. Taasoo la yiri haddii aan ku guulaysana hadda hero baa tahay, haddii laakiin ay dhacdo in aan ku guul daraysano hadda waa lagu tugan doonaa. Sidaas awgeed Aadan ma uusan noqon qolooyinka ka qayb galay dagaalka ilaa Addis Ababa oo loogu magac daray La Conquista dell'Impero oo Talyaaniga ku guulaystay. Markii dagaal xoog leh uu dhacay, dad badan ay nafsadooda ku waayeen qaaliga ah. Aadan iyo geedkii uu ku istaagnaa waxaa la soo amray markaas dowladdii fashistada oo jirtay in la soo qaado la keeno Itaaliya. Markaas xamar baa la keenay, xamar baa markab laga soo saaray, waxaa laga dejiyey Napoli kadib waxaa loo gudbiyey Roma. Taas oo ay dhacday inuu muddo badan xabsiga ku jiray, laakiin nasiib wanaag waxaa soo yeertay natiijo aadan u hiilanayso oo ah Talyaanigii in uu ku guulaystay dagaalkaas isaga ah. Sidaas awgeed intii uu meesha ku jirayna waxay siiyeen tababaro badan, ay barayaan xag ciidan ha noqoto, xag maamul iyo maareen ha noqoto. Adigoo runtii aad iyo aad ayuu uga faa'iido weyn. Wuxuu ahaa markii la gartay in ay ku guulaysteen, hadda xafladii ugu weyneyd baa waxaa lagu siiyey bilad
dahaba iyo isagoo loogu magac daray jidadka ka mid a magaalo madaxda talyaaniga Roma oo via shire lagu magacaabo Eritrea Africana Quartier waxyaalahaas oo areadaas oo ka helay magac iyo maamuus arrintaas markay dhacday aadan ka sokow waa shaqeeyey wuxuu ku bartay xabsiga intuu ku jiray intaanan iloobin niman baartijaana oo markaas fashiistaha iyo nasiistaha ka horjeeday u arkayay inay dadka awood ku qabsanayaan markii uu soo baxay kadib waa shaqeeyey xafiiska la oran jiray Africa Orientale oo laga xukumay markaas talyaaniga saddexdii dowladooda gumaysan jiray Libya Eritrea iyo Soomaaliya ayuu muddo ka shaqeeyey kadib ragiisii ayuu xasuustay wuxuu ogaaday markaan qoladii ay ka wada hadli jireen inay weli wadankii haystaan ragiisii wax ka raacay wuxuu tegay dhul buuraleeya oo taxano ah koliinayaal istaba taxan area la yidhaahdo Marka iyo Majarato Sansarena magaalo la yidhaahdo magaalada Treya meelahaasoo areadaas bay ka dagaalami jireen waa la qabtay mar baa la wada xiray isaga laba Soomaali kale la socotay Eritrea Ethiopian baa jiray dad waxaa jiray Ingiriisa dad Yugoslavia adiga group isbahaystay oo partijana oo markaas ka soo horjeeday fashiistadii wadanka dhibaatada ku haysay markii la xiray nasiib wanaag intii kale oo saaxiibadood ahaa waxay isku dayeen in laga soo saaro marka aadan maruu ka sheekeeyey wuxuu yidhi markaanu xirnayn waxaana la soo dayn jiray keliya annagoo askarna ilaalinayso Treya magaalo la yidhaahdo maalinta Axadda lacag yaro aan wax ku cuno laakiin waxaa nasiib u helnay buu yidhi dadka jidadeen ahaa beeralayda oo meeshaas deganaba aada noo jeclaa oo ogaa halgankeenna meeshuu u jeedo waana caawini jireen wax walbay noo waxayn jireen adigu nasiib wanaag markii dambe qolooyinkeenna qolo ka mid ah oo buuraha ku jiray baa soo duulay annagii bay xabsiga naga soo saareen qaar ka mid ah ayaa u suura gashay in la soo daayo anigu aan ku jiro anigii naftigeygoo markaas ayaga la socdaan noqonay meeshii baan galnay intii naga dhinteenna waa waxayna buurahaan galnay marka meeshaas baan waxaan ka samayn jirnay operation yar yara oo habeenkii aan magaalada soo galno aanu ka samayno mataqaanaa ku dhufo oo ka carar camal dagaala runtii waxyaalo badan baa dhacay meelo badan baan galnay waa ku dhaawacmay baa ii ilaalin jiray buuraha ayaan ku jiri jiray runtii dadka diin iyo dhankaas iyo looma fiiranayn waa laysku xirnaa kalar ma jirin markaas oo inkastoo waqtigaas la jooga ay aada iyo aada u dhib badneed dadka maqaarka madowle sida loo fiirinayo laakiin dadka markaas waxay ogaayeen nin oltremare iyo kontinenta afrikaana ka yimid oo in laga xoreeyo fashiistada iyo nasiistaha ku dhex jiro in loo arko nin aada agtooda qiimo yaqaayo uga leh adigu muddadaas kadib waxaa dhacday in nimankii fashiistada ahaa maadaama dadkan ay yihiin dad oo isku dhafan oo awoodda Jarmalka iyo Talyaaniga aysan lahayn laakiin waxay door bideen inay buuraha ka dagaalamaan waxay yiraahdeen rasaasta iyo logistikada Ingiriiska ayaa u soo daadin jiray xataa waxay bilaabeen in neefaf maadaama dad muslim ku jiray neefafka loo soo tuuro oo iyaga gacantooda ay ku qowracdaan adigu nimankii waa u suurtoobi weysay waxay qabteen markii hore laba Soomaaliya baadariga Talyaaniga oo joogay laba Talyaaniya nin Ingiriisa meeshii ku toogteen intii kale waa carreen buurihii kale marka buuraha waa aad bay u dheer yihiin waa lagu heena ku kornay aniga iyo gabarta uu dhalay Shukri Aadalow iyo gabartaydaba waa tagnay waa aragnay meel loo gari kariyo la aadi karo waa meelo wada luuq ah buuraley ah nimankaana waxay wataan technical ma aysan awoodin inay tabakacaan waa carareen waa ka tageen sidaas aawadeed wixii ka dambeeyey haddee waxaa dhacday in waagii dambe 1946 Aadalow inuu dib ugu soo laabtay wadankiisii Soomaaliya markuu ku soo laabtay haddee markaas wuxuu u ekaa leegaa jirtay nin wuxuu ahaa Talyaaniga ay aad iyo aad uga dambeeyaan ma sameyn inuu meeshii wuxuu rabo ka heli karay maadaama Talyaani wadanka haystay inuu hadduu rabo madax sare ka noqdo laakiin wuxuu xurmeeyey halgamayaashii leego oo soo halgamayay
in uusan ka mid noqdo mooye uusan dhicin inuu wax sadbuursiya ka qaato talyaaniga oo markaas si gooni u arkayay runtii. laakiin wuxuu ka mid noqday dadkii markaa jiro leegada xisbiga doorashooyinkii la galay inta jeeroo lasoo galay baarlamaanka wuxuu ka noqday waxyaalo badan. ka hor waxaa uga horeeyey in uu noqday wasaaradda waxbarashada la geeyey, raadiya muqdisho inuu noqday ninkii ugu horeeyo afka talyaaniga ku hadlo, in iskoola politica imtixaanadii waagaas ay ka bixi jireen aqoon-yahankeena ugu horeeyey looyar sida ismaaciil jimcaale ay ka baxayeen inuu guddoomiye ka noqdo, in mataqaanaa uu noqdo departamentadii sikureedsada markaas oo talyaaniga uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha waqtigaas mudduu hayay. kadib markii hadee dowladnimadii soo dhowaato afis oo markaas uu ka ahaa governorka Mario Stefano uu ka ahaa oo asaga markaas magacaabayay prime ministerka Cabdullaahi Ciise 1956 ilaa 60kii dowladnimada aan gaaraynay wuxuu ka mid noqday wasiiradii markaas la sameeyey oo markii hore loo magacaabay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha oo markaas Muuse Boqor baa ahaa wasiirka arrimaha gudaha, Cali Jimcaale wuxuu ahaa wasiirka arrimaha bulshada, waxbarashada, caafimaadka, shaqada iyo shaqaalaha, Salaad Cabdi Kaajo wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda, Maxamed Cabdi Nuur Juuje wuxuu ahaa wasiirka mataqaana Xaaji Faarac Cali Cumar wuxuu ahaa ministarda la ekonomiya. adiga waqtigaas waxay ahayd waqtiga ugu horeeyay ilaa 60kii la gaaray. 60kii markii la gaarayna wuxuu ka mid noqday baarlamaanadii ilaa 69kii dhacayay inuu mar kastaba uu ka mid ahaa. ugu dambeyn wuxuu ahaa wasiirka arrimaha garsoorka iyo mataqaanaa diinta, minister of affairs justice ayuu noqday. haddee 69 waa tii ay dhacday kuugii inqilaabkii militariga Maxamed Siyaad Barre uu ahaa. waa tii haddee madaxdii markaas jirtoo dhan la xiray inta ay ka adkaanayaan in afgooye la geeyey. nasiib darro waa uu ku jiraday. hadduu ku jiraday haddee ma la marsiin maqaamkii uu lahaa oo markii warqado ay qoreen saaxiibadiis meesha kula xirnaa, Cabdullaahi Ciise kula xirnaa, rag badan baa xirnaayo meesha, Muuse Boqor, Jaamac Gaani, wixii wasiirre iyo markaas funsunaari weyn ahaa ayaa meesha ku xirnaa. adiga Maxamed Siyaad Barre nasiib darro warqadiisii wuxuu ku soo qoray nin siyaasiya dibadda looma qaadayo. markii dambe isbitaal Madiina la jiifiyey asagoo aad tabcaan u ah. markii loo sheegay in ninkan arrintiisa aad u liidato, prognosi ahaan saadaalintiisana aysan u egtahay mid uusan ka kici doonin, markaasaa la yidhi hala qaado. markii la qaadayay safaaraddii Roma joogtay runtii waa lala hadlay inaysan ka hor imaan. waxaa loogu qoray feelkii kliinika kaartadiisii caafimaadka in uu yahay nin ganacsada ah. saanan dowladda talyaaniga u ogaan ninkan aysan u ogaan in mataqaanaa uu ahaa aadan shara jaamac ninka maanta la keenay oo wuxuu ka mudnaa talyaani iyo marsiin lahaayeen oo isbitaal polyclinica la yidhaha Rome ku taala lagu tuuray. hadda 3 beri kadibna waa geeriyooday. wuxuu noqday aadalow nin markuu dhimanaya dhibana ahaa oo dunuub laga galay oo uusan mudaysan, uusan qofna dhibaato hore ugu geysan. waxaana lagu tilmaami jiray wasiirada ugu kacfuran, ugu fiican, ugu wanaagsan oo aan marnaba qofna dhibaato ku samayn. gobolka uu ka soo galana dadka deegaan ahaan u wada degan oo Soomaali kala duwan ah inay aad iyo aad u soo dhaweyn jireen. taariikhdiisaas taas bay ahayd. dariiqa la yiraahdo Via Shire ee ku yaal Roma maxay tahay macnaheeda? aadan shire jaamac shire haddii asaga family name ku siiyey markaas waxaa loogu magac daray wixii uu kasbaday iyo dagaaladii uu ka soo qayb galay oo wajiye badan yeelatay iyo kii wardheer iyo walwaal oo la conquista del impero loo bixiyey oo kadib sababay dagaalkii labaad. arrimahaasoo idil waxay noqotay wax taxana ah. marka keliya xagga kuma ekaanine Soomaaliya uu ka soo jeeday asaga Israhaan oo talyaaniga markaas joogayna magaalo madaxdeedii Muqdisho jid buu ka siiyey. jidkaas oo loogu magac daray Shire, aadan Shire low. waxaa hadday uu u dhaxeeyaa kaniisadda Muqdisho oo caanka ah iyo Shire Maxamar jidka maraya saan ayaa magacaas asagana loo siiyey. taas waxaad ka garanaysay in ay u hayeen xurmad tiro badan, in casumaado badan loo sameeyey, in Yugoslavia uu 2 jeer Marshal Tito
uu casumay markii ugu dambeysay uu dhintay niman waqtigii hadda maxamed siyaad barre madaxda ahaa tegey nin wasiirka waxbarashada ahaan jiray iyo rag kale oo markaas ka qayb galay runtii hadde markaas waxaa dhacday in ay ninka keliya ay yidhaahdeen aan ku leenahay soomaaliya oo saaxiibkeena aadan shire waa dhintay baa layidhi aadan shire marka waagii tiito wuxuu sameeyey 2 arrin tuutihiisi buu siiyey markii oo dagaalkii iyo wixii dhammaadeen fashiisadii la dagaalamay wuxuu yidhi maxaan ku uga abaalgudnaa oo ku siinaa ma gudi karno ma degaysaa waddankeenna ma ku dejinnaa ma ku waxaynaa mayuu yidhi aniga waxaan rabaa waddankayga aan muddo dheer ka soo maqnaa dadkayga waan intaas i arag anoo ku soo tegay dhalinyaranimo oo aan hadda garan karin in weli waalidkay nool yahay in kale inaan waddankayga ku noqdo marka waxaan kuu samaynayaa buu yidhi tuutahayga iyo bistooladayda labadaanan hadiya kuu siiyey saan isku xasuusanno laakiin nasiib darro markii ay dhacday kuugii ninkii ugu horreeyey gurigiisa la tegey maadaama cabdirashiid cali sharmaarke la dilay uu wasiirka justiceka ahaa isla markaasna xeer ilaalihii qaranka ninka waxaa ahaa jiray loo oran jiray cabda faarax baashane uu yidhi markiiba dacwadii hala galo waxaad u malaysaa kuugii markaas dhacaayey inaysan raalli ka ahayn arrintaas in la dedejiyo hataa wuxuu sameeyey in xeer ilaalihii iyo staafkii la socday gurigiisa baarista ay ku wadaan isagoo wasiirka ah marka maxaa dhacay markay dhacday arrintaas inqalaabkii kii ugu horreeyeyba maxamed siyaad barre wuxuu ka bilaabay wasiiradii guriga aadanlow in wixii dokumenti ah oo meesha yaalay iyo wixii la qaado xataa hadiyadihii lasoo siiyey la qaato oo inaan maanta daraajadeeda lahayn ninka uu markaas u soo dirayna nin wuxuu ahaa gabar ka qabo axmed salewaan tafle waxaa dhacday in wixiisiyo idin la qaatay waxaa ku jiray shahaado marshaal alexander uu siiyey isagoo magaca UN-ka ku hadlayo marka waxaa nasiib darro ahayd nin magac iyo maamuus adduunka ka helay soomaaliyana magac weyn u soo jiiday in ninkaas isaga ah taariikhdiisa la qariyo taas oo aan sabab aniga aan leeyahay waa u dhici kartaa aysan jirin marka waxaa nasiib darro ah ninkii adduunkaas magac ka helo oo dadkii ajnabiga ahaa iyo dhulkii uu ka dagaalamayey ay magac iyo maamuus siiyeen in dadkii uu ka dhashay oo intaasoo guula uu usoo hoyeeyey magac ama UN-ka ama dowladda talyaaniga ama yurubiyaanka ama wixii ka horjeeday fashiistada ay u garteen in magac la siiyo shahaado la siiyo wax walbaba la siiyo in uu helo inuu ka shaqeeyo xafiiskii ugu weynaa oo Africa Orientale oo Afrikada uu talyaaniga markaas gumaysan jiray uu ka shaqeynayay in uu haddana asagoo wax walba loo ogol yahay ka diiday in uu dib ugu soo noqdana go'aansaday dhulkii asaga asal ahaan uga soo jeeday Soomaaliya laakiin Soomaaliya uma abaargudin laakiin waa ka shaqeynay waanu daba soconnaa taariikhdiisa meel kastaan gaarsiisanay buuggiisa aad iyo aad baan 1,000 xabo oo koobi aanu sameynay meel aan laga soo dalban Soomaaliya ma jiro bangiyada buugaga meelaha lagu dhigo Soomaaliya dhalinyaradii waxay gaareen inay teesahooda ku darsadaan nin Soomaaliya oo taariikh intaas la egsameeyey aadna waxaan ugu faraxsanahay sida niyad samida iyo sidaad u jeceshahay nin taariikh adduunka ka samaystay in aad gacan ka geysato maadaama adigu naftigaada aad Soomaaliya si fiican u ogtahay taqaanid ku baratay ku dhashay ku noolaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta Roberto adiga kula kulmo adiga oo lugahaada igu soo doontay markii aad meelo badan aragtay akhrisay in aad ka gungaarto oo aad tagto taariikhdaas isaga ah qofkii wax ka og oo wax ka sheegi karo waayo anigu sodogay buu ahaa gabartiisaan qabay anigu gabartayda awow u yahay wuxuuna ahaa nin runtii aan aad iyo aad aniga Soomaali ahaan markaan fiiriyo aan weli rumaysan lahay sababta ninkaas isaga loo hagraday oo Soomaali ah oo aniga ka samaysan Soomaaliya dhexdeeda oo ay tahay dowladda Soomaaliya inay u istaagto inay daba kacdo oo nin kastoo Rome tago madaxa uu yiraahdo ubax baa dhigaya aadalow qabrigiisa la geeyo taaladiisii iyo meelihii loogu magac daray waxay noo ahaayeen sharaf aan la iloobi karin laakiin nasiib darray noqotay waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa wixii dambe oo yimaado oo dareen Soomaalinimo ay ku jirto in aadalow ay noqon doonto taariikhdiisa mid aan la qarin oo ay noqoto sida qoraxdaas oo aan sacabka la saari karin aad iyo aad maasnday Dr. Cabdiraxmaan Cumar Maxamed warbixinta maad siisay
waa mahadsan tahay. barnaamijkii ku saabsanaa taariikhda aadan shire jaamac wanaga intaa waxaa mahad gaar leh xamduuni abuubakar oo noo fududeeyey barnaamijkan. waxaan ugu soo talagalay anigu maxamed roberto tv-ga universal ee Roma. waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.